taas in gabisaar laga xirto oo raggu duruuc ka xirtaan iyo in aniga aan meesha aan ku baxay la ogaado Niciimo Joker mac salaama la idho wax ka dhaxeeyo ma la subax saakay baasha inay waji kala yeelata ka baqaya laakiin Soomaaliya baaqiga oo ka shakhsi ahaan aniga Nimco iyo Sharma Boy dad badan qabiil iyo waxa igu soo qaaday aniga Nimco iyo Sharma Boy qabiil ka soo ka iska daayay kan guud ee ka dhasheen hatta ma wadaagno qabiil ahaan hadii la yiraahdo daahira igu soo sokeeyo laakiin waxa aan ka gubanahay in dhalinyaro ahaan waxaan ka gubanahay waxa weeyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub aad baan idin salaamaya walaalaha sharafta leh saaxiibada sharafta leh ee nagu xiran halkaad nagala socotaa waa Riiraash Films qofka idin la hadlayno waa walaalkiina Riiraash mar kale iyo muuqaal cusub aad baan ugu mahadcelinaynaa saaxiibada quruxda badan ee nagu soo biiray sida sharafta leh nagu soo biiray ee dadnimada iyo Soomaalinimada ku jirto waxaan rabaa muuqaal yar oo inaan duubo oo kaga bixinayo falcelin ama waxa markaas aniga ahaan ana aaminsanahay kaga hadlay halkan waxaan kusoo gudbiyaa aragtidayda halkan waxaan kusoo gudbiyaa aragtida dadka sidee wax u arkeen iyadana waan soo gudbiyaa marka aniga aragtidayda ahaan ayaan rabaa inaan muuqaal yar kaga hadlo waxaa jirtay dagaal maalmahan socday dagaalkii Sharma Boy oo adiga hadda gabagaba taagan إن شاء الله دمادان رجينا دجال كاس واحد كدرنا وجروا ويلكينو إلهي حبسي كسر دايو لأنه حاجة تموقال كي قدام بيجي وضاير كده بي محل هذا channel كيسا وكجهد لا يديه ده إنه كبحين دونا شرما بوي كاج درونتي أنا أركي متجس ودي بحين هن نقف هذا ترى هذه الكورة أنا واحد أنا كسينا أنا كسينا يا واحد لكن مركو هاري بري صوتك taas camal u dhigantay wax bixinna ma ahayn taasna wax bixin lama yiraahdo raganimada kuma jirto taa xaqaas kaga hadlay marka muuqaalka gabagabadiisa wuxuu ku sheegay ku aflagaadiyay dhowr qof laba maamo halkan ka salaamaya Franka iyo Milyon iyo gabadha Nimco Joker iyo Omar Barbar Franka iyo Milyon wax badan ay ka soo hadleen intuu Sharma Boy dagaalkiisa socday saan arkay aniga dhowr mar ay ka soo hadleen ساعدنا ويسكت دعناين سيد دونان هاوجه هيليان ويركا عيدني ما هاوجه هيليان قبيل أما صومال نبوا هو دجال كل شيء روحوا ده هوا ده كل يجا سيخانه لكن واحد شرتي قبل أن نوع جوكر أو يرى عن أركين مغال يدا كجاه اللي صار كاسويل إيش صار تأركين يا عمر أصلا مغال كيسيو أهم مغال إسكا معقولة وتذكر داون كران on qabyaalada isneen iyo adig iswada raaciyay Nimca iyo muuqaal soo duubtay ee arinka kaga soo gadooday wuxuu Nimca ku sheegay in muuqaalada galmada ah muuqaalada xunxun inay duubto iyo ku sheegay saan wada ognahay Nimco waxaa jirtay dhibaato ku dhacday intiina badan social media dadka aad ku isticmaalay og yihiin dhibaato ku dhacday iyo jirto markii dhibaato ku qabato ninka goobka horta walaashii dhibaato ku dhacday kuma caayo taas aan idin sheegay kuma caayo kuma aflagaaday Nimco kaliya dhibaatada kuma dhicin waxay ku dhacday gabdho badan oo Soomaaliyeed ku dhacday ha noqdaan kuwa caan ah iyo kuwa caan ahayn in ragga Soomaaliyeed kooda damiirka aan lahayn ee gabdhaha dhibaatooyin u geystaan waxaa jirtay in Nimco dib loo geystay isla markaasna muuqaal laga duubay baraha bulshadana lagu baahiyay Nimco kaliya ma ahaan waa wada ogtiin gabadhii ugu dambeysay Safiya Tusma maanta hadaan YouTube soo fadhiistaan oo Safiya Tusmadii muuqaalada galmada duubi jirtay tasmiin wadaani Safiya dagaalno aan arinkaas ku sheego de gaf bay tahay gabadha aad ugu gaftay dagaal uu ka tagay markaa xaniin ka taabashay noqonaysa markaa reerkeedii gacan inuu kula tagaana macquul Nimca muuqaal soo duubtay ee aad u ooynayso waxyaabo badan ku jira muuqaalka kuwa waan jeclaystay kuwana ma jeclaysanin kuwa aan jeclaysanin iyo kuwa aan jeclaystay inaan ka wada hadlaan doonaya marka hore muuqaalka intiisa ugu muhiimsan yaa rabaa inaan idin daaro iska muujinaya inta bilowga calol xumo lama daawan karo gabadha aad ay u oynaysaa aniga marka koow aan daawad aad baa u calol xanuunay marka ma sii daawan karo inta muhiimadda ay ka hadlaysaa yara geenaya ka in la xiniyo taabto horta aniga wacal maahi dhulkana kama dhalan Soomaali Maxamed oo 22 milyan horta anuu ka dhashay
number 1 صح سومالي محمد هكذا دلتي number 2na hadday habar noqotay oo marba dhinac la isku faquuqay oo aniga daahir calasow dhilla sharmutaho filmaanta saksiga samayso uu iigu sheegaya qabiilka aan ka dhashay aniga macsi dusha uu iiga saarayana naag daaro ismaaciila ahay xiniin rageed bambarta aan fadhiyo ku fadhiyaano been kuma sheegay anoo gabar Soomaaliyeed oo 22 milyan ka soo jeeda baan haddana waxaan ka soo jeedaa 18 milyan oo ka mid ah 22 milyan hadday ka soo tagtana waxa ay dhalay dadka Soomaali Maxamed uu quwada badan geesinimo hadday noqoto waxa ay dhalay aniga darbi daaro naagtana dad daarooda 9 bilood aniga ay soo qaaday oo adduunka i keento igu soo dartay rag aniga ka dhashayna rag la xiniyo taabta ma aha rag la xiniyo taabta ma aha dad duruucda loo siibana ma aha holanna waa ku nool yihiin yurubna waa joogaan saaka waxa halkan aniga i soo fariisiyay daahir calasow intuu in adeerkay sidii la ogaa u galay sharmaake cabdi naasir bartu asaga ku gowracay oo waliba intuu soo fariistay yiri waliba diyaan ka dhiibaya si bahdilaada subaxdii dambana aniga iyo eedaday isku barnigu gowracay taas in gabisaar laga xirto oo raggu duruuc ka xirtaan iyo in aniga aan meesha aan ku baxay la ogaada Niciimo Joker mac salaam la idho wax ka dhaxeeyo mala subax saaka Soomaaliya muuqaalka inta ma sii dhaafin karo muuqaalka waxyaabo badan in gabadha kaga hadashay waa gar waxyaabana ilama qurux badneen in carabkeeda soo maro laakiin waxaan ka fiirinaynaa qofka emotionalkiisa qofka markuu careysan yahay waxyaabo badan uu ku hadlo hadhow ka shalaya jirto ka raali garan ka bixiyo oo qurux badneen nimco saan wada baranay waa gabar fanaanada abwaanada gabar la abuur leh gabar actorada jilaa comedian ah nimco waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaalida ugu firfircoon markay noqoto xag ganacsi markay noqoto xag social dhaxgal markay noqoto bulsho taana nimco qabiil kuma gaarin ee waxay ku gaartay dadnimadeeda iyo Soomaalinimadeeda marka hore taan isla ogaana midda labaad muuqaalkan emotionalka ay soo duubtay nimco in 22 milyan ay sheegtay Soomaaliya u gar noqoto wax taageersanahay laakiin kuma faraxsanin maanta nimco gafka loo geystay inay ka jawaabaan reerkeeda kaliya taas haddii dhacdo waxay noqonaysaa dagaal cusub oo social media ka qarxo oo noqdo mid qabiilaysan ninka odayga ah ee dhibaatooyinka badan dhalinyarada iyo dadka u geysanaya ee madaxda iyo mas'uuliyiinta cid aan dhaafin sheekh iyo qof walba oo dhaafin ujeedkiisa koowaad wuxuu yahay in dagaal uu ka qarxiyo Soomaalida dhexdeeda ujeedkiisa koowaad wuxuu yahay in Soomaalida iska horkeeno haddaba suu ku faa'iidi kara waa inuu marba qof ku dhagaan marba qof caaya then la kala saftaa kolay dagaal ee gabar kicisana ogtihiin walaalka maanta markay dharbaaxa ku dhacdo waxa la oran nin ragata ninka iska celi laakiin walaasha markii wax la soo yeelo xisaab mala baash meesha tagi doonto baasha inay waji kala yeelata ka baqaya laakiin Soomaaliya baaqiga oo ka shakhsi ahaan aniga nimco iyo sharma boy dad badana qabiil iyo waxa igu soo qaaday aniga nimco iyo sharma boy qabiilka soo ka iska daayay kan guud ee ka dhasheen hataa ma wadaagno qabiil ahaan hadii la yiraahdo daahira igu soo sokeeyo laakiin waxa aan ka gubanahay in dhalinyaro ahaan waxaan ka gubanahay waxa weeyaan in qof Soomaaliya dhalinyaro mustaqbal leh in qof Soomaaliya dadkiisu ku dhex jiro bulshadiisu ku dhex jiro caqdad la geliyo caqdad lagu abuuro marka Soomaaliya ay baaqas gabadha ee dirtay hal looga jawaabo Soomaalinimo ee qabiilnimo yaa looga jawaabin qofka inagu dhex jiro ee dadka dulminayo haddaan si wada jira uga soo wada horjeesano wallahi billahi taala meel naga istaagay laakiin markii loo wada carab la laadiyo nin walba oo qabiil ku raaco dhibaato ay imaanayso marka aniga baaqa ugu dambeeya Soomaaliya oo sheegi lahaa intiina daawanayso muuqaalkaana si share gareeya aniga codkayga hadda hal qof oo Soomaali gaarsiiyay alxamdulillah igu filan waxa aaminsanahay qof kale Soomaali hadda gaarsiiyo oo ku qanco oo waxaas hadhow laftirkiisu niyadiisa ku jirto in oo hadalkayga si fiican intuu dhageysto kaga qanco alxamdulillah ilaahu ugu mahadcelinaa waxaan ilaa Soomaaliya gabadha sadaa u helinaysan Soomaalinimo oo ka aysan gafkaas ninka afkiisa ka soo yeeray
ee dhibaato gabadhaas hadda ka hor ku dhacday waxay iyada galabsatay ahayn oo gabdhaheena Soomaaliyeed maalin walba ku dhacaan oo maanta ku cay ogow tan kula dhalatay ee kugu hooyo kugu aabada dhibaatadaas markay ku dhacdo biri maalin walba markaa nin isqabsataan in sida loogu caanayo kaligeedna ma ahan qabiilku daahir ka soo jeeda ha noqoto qabiilka nimca ka soo jeeda ha noqoto ama qabiilada kale oo dhammaan waxa ku jira gabdho saas oo kale loo dhibaateeyay haddaba waxaa ogaataa tan haddii laga aamuso next gabadha kale inay noqonayso gabar adiga kula dhalatay marka tan si guud ninkan ha looga horjeesto dadkiina aan Europe la jooga ninkan aan dalka la degana sharci waa ka jiray adeer macaan adinkoo gacan iyo feer iyo qalalaasa geysanin maxkamad la taga muuqaalka inta soo gabagabeynayna waa maasantiin daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaali qalbigooda Allah burcad isku mariyo. Bye bye.